بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo taxanaha caawa iyo barro show xilligan qodobadaan idin kugu haya waxa kamida dawladda Saudi Arabia ayaa waxay ku dhawaaqday war aan laga filayn carabtii caawa waa yaabeen go'aankan dawladda Sacuudiga inuu ka soo bixi karana lama aaminsanayn arrintan iyo talaabadan ay qaadeen waxa ay saameyn ku yeelanaysaa nidaamka Israel oo waayidii ugu dambeysay qaadaya tilaabooyin kala duwan oo ku saabsan arrimaha gobolka bariga dhexe iyo waliba go'aankii maanta uu saxiixay Benjamin Netanyahu ee ku saabsanayd in daanta galbeed deegaamin kale oo ballaaran lagu sameeyo si looga hortago qorshaha dawladda Sacuudiga iyo waliba dawladaha kale ee Carbeed oo Qatar ay kamid tahay ay wadaan haddaba go'aankan cusub ma waxa uu noqonayaa uu Sacuudiga qaaday mid uu ficil ahaan uga jawaabayo talaabadii Israel ay ku qaaday weerarkii ka dhanka ahaa dawladda Qatar ee dhinaceeda lagu beegsaday xubnaha kooxaha wax iska caabinta ka tirsan oo halkaasi ku sugnaa haddaba Mohammed bin Salman hadalka caawa uu afkiisa ka jeediyay ee la yaab kale ayaan rabaa inaan kuugu soo gudbiyo barnaamijkan oo warbaahinta ay si weyn u qeexayaan isla markaana ay u lafagurayaan inta waxa raaci doona wasiirka wasaaradda difaaca nidaamka Israel Katz ninka lagu magacaabo maanta waxa uu la kulmay waxyaabo la yaab leh oo warbaahinta adduunkana ay si weyn u faaqidayaan nin telefoonada jabsada oo dhinaca internetka aad ugu dheer oo ka soo jeeda wadanka Turkiga ayaa qaaday talaabo la yaab lahayd kadib markii wasiirka uu ka wacay muuqaal toosa oo telefoonka ah markii uu telefoonka qabtana la arkay isagoo hadallo kulkulul u jeedinaya wuu qalqalay Katz kadibna telefoonkii ayuu jiray laakiin ninkan waa uu adeegtay arrin kale oo la yaab la ayuu sameeyay taasoo hadda wakaaladda wararka Turkiga Anadolu warbaahinta kale adduunka iyo waliba wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm uu qorayo barnaamijka ayaan kuugu tabin doonaa talaabadaasi iyo sida la bilaabay in loo fasiro dagaalkii tiknoolajiyada ayaa markan la guda galay oo xitaa waxay gaartay in la ogaanayo arrintaasi Katz naftarkiisa waa uu ka hadlay warbu arrinta ka yiri iyana waan kula wadaagi doonaa isla barnaamijkan inta aan wada joognaa khiyaaray waxaan ku soo dari doonaa dawladda Turkiga waxay noqotay dawlad mucjiso ah aad baa loola yaaban yahay ninka la yiraahdo Recep Tayyip Erdogan iyo waxyaabaha uu sameeynayo waa tii aad ogeydeen oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu sameeyay waa tii uu dhahayo markabka askarta iyo gaadiidka xambaaro oo diyaaradaha ay ku soo degaan ayaan sameeynaya hadda waaxda difaaca ee tiknoolajiyada wadankaasi Turkiga waxay ku dhawaaqayaan in ay soo saareen diyaarad cusub oo ah mid dagaal dhawaana wadamada Yurub ay ka heshay shahaadada ama aqoonsiga wadamo fara badan ay soo dalbanayaan marka Turkigu waxa uu gaarayaa isku filnaansho dhinaca tiknoolajiyada dagaalka ah iyadoo gobolka bariga dhexe xaaladiisu ay gabidhacleynayso maalin walbana ay suuragal tahay in ay dagaaladaasi xogeystaan qodobadaasi wararka kale ee diblomaasiyadda ayaan kula wadaagayaa dawladda Jordan oo qudheeda war soo saartay arrimaha qaliijka ku saabsan akaaray aad u mahadsantihiin ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii aad hore noola joogtaan waa mahadsantihiin sidoo kale laakiin muuqaalka la wadaaga saaxiibadeen soo dhawaada mar kale ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar Mohammed bin Salman dhaxal sugaha dawladda Saudi Arabia waxa uu ku dhawaaqay talaabo walaac gelisay Israel kadib markii ay dawladda Sacuudiga hoosta ka qaadatay go'aan aan la malaysan karin xilligan Mohammed bin Salman iyo dawladdiisu in ay ku dhawaaqi karaan sida ay ku waramayaan warbaahinta kala duwan ee caawa waxa ay leeyihiin Mohammed bin Salman waxa uu leeyahay Israel meesha ay weerarayso iyo magaaladan go'doonsan ee marinka ku taala ujeedada iyo dagaalada ay ku qaadayaan maaha in ay ku sii fogaadaan intan ka badan lama aqbali karo taas waxay sabab u noqonaysaa in carabtuna ay ka baxaan heshiiskii nabadda ee 2002 Israel la gaaray ujeedadiisu ahayd Ibraahimiyada loo yaqaano
waxaana ay arrintan ku soo aadaysaa xilli xiisadda gobolka ay aad u kacsan tahay in sacuudiga tallaabadan uu ku dhawaaqo ayaa wariyaashu waxay leeyihiin iyo dadka wax taxliilinayaba ma ahayn mid hadda la malaysan karay laakiin imaaraadkana maanta waa kii hanjabay dowladda masarna waa tii goodisay sacuudigana tallaabo ficila ayuu qaadaba uu leeyahay lama aqbali karo waxyaabahan ay samaynayaan nimankan waxaanay u muuqataa hadda dhinac kasta oo carabta ka mid a caawa inay samaynayaan goodin iyo cadaadis kala duwan haddaba maxamed bin salmaan waxaa leeyahay waxa uu si cad u sheegay in magaalada go'doonsan ay tahay dhul falastiiniyiintu ay leeyihiin isagoo tilmaamay xuquuqda dadka ku nool inay ka go'in ama weerarka lagu hayo ama hanjabaadaha ka yimaada dhinaca Israa'iil aan la aqbali karin hadalkan ayaa yimid kadib markii ay kooxda ama nidaamka Israa'iil oo bartilmaameedsaday hogaamiyaal kooxaha wax iska caabinta ka tirsan oo ku sugnaa magaalada Dooxa arrintan waxay abuurtay baa la yiraahdaa culays fara badan oo ku riday xiriirka qaliishka iyo qorshihii heshiiskii Ibraahimiyada sida wararka ama wakaaladaha wararka carabta ay wax u dhigayaan bin Salmaan kama hadal toosa kama jeedin kooxdan wax iska caabinta sida la socotaan dowladda Sacuudi Carabiya iyo kooxan wax iska caabintu xiriir fiican kama dhaxeeyaan oo waliba aad bay isaga soo horjeedaan oo isma aqbalsana laakiin haddana dowladda Sacuudiga waxay leedahay taasi nooma diidayso inaan soo bandhigno dhibaatooyinka dadkan ay la kulmayaan maalin walba la balanbalinayo inaan aqbalno oo heshiisyadii horena aan ku sii jirno marka waxay ku goodinayaan heshiiskii 2002 carabtu ay galeen inay ka laaban karaan haddii Israa'iil aanay joojin howlgalladan inay sii wadaan bin Salmaan waxa uu sidoo kale yiri Qatar ayaa dhankeeda cadaysay in joogitaanka xafiiska kooxaha wax iska caabinta ay ku leeyihiin magaalada Dooxa uu ahaa codsi ka yimid dowladda Mareykanka marka laba arrin baa hadda iswajahaysa oo ay u egtahay carabtu inay ka jawaabayaan waa mare in dhinacyadan Sacuudigu ay leeyihiin waxaan ka baxaynaa heshiiskan haddii aan la joojin weerarka iyo bartilmaameedsiga nabadda ka hor imaanaya iyo baabi'inta magaalada go'doonsan dadka ku sugan waa qodobka kale nimankii ahaa Qatar waa tii Israa'iil ay hore u tiri moogtahay haddii dadkan meesha idin jooga idan maxkamadayn annaga tallaabo qaadayna oo si degdeg uga jawaabayna laakiin hadda waxay leeyihiin war horta Netanyahu ma og yahay nimankan uu weerarayo iyo dhacdooyinka waddankan uu ka sameynayo ka hor in aan meesha ku soo dejinay codsi ka yimid dowladda Mareykanka oo la yiri raggan xafiis halkan ka furtaan ee dowladda Qatarna soo dhaweeya oo martigeliya marka waxaa muuqanaysa in hadda Qatar ay gar dhiganayso ay leedahay maxaa la ii weerarayaa haddii shalay la ii dhiibay oo la yiri arrintan hay sida ka muuqanaysa Dooxa ku dhawaaqitaankeeda arrintan kadib waxa ay ku dhawaaqeen shir degdega oo caalamka carabta iyo kuwan islaamka isugu yimaadaan maalinta Axadda iyo Isniinta soo socota oo wadankeeda ka dhici doona si looga arrinsado weerarada Israa'iil ay ku qaaday dhulkeeda iyo waliba tacadiyada ka dhashay bartilmaameedyada raggan martida u ahay loo keenay ee Falastiiniyiinta inkastoo aan filasho badan laga qabin shirkaasi inuu keeno tallaabo ciidan oo toos ah haddana wariyaashu waxay leedahay waxay muujinayaan culays siyaasadeed oo Israa'iil kaga imaanaya gobolka iyo dhaqdhaqaaqa mowqifka carabta iyo wadamada islaamka oo hadda u muuqanaya in ay midoobayaan marka xaaladda waxay u muuqataa inay aad ugu sii quslaanayso Israa'iil qadarna ay bilowday inay ku dagaalanto luqadda diblomaasiyadda iyo waliba cadaadiska caalamiga ah isla wararka gobolka bariga dhexe ayaan sii joogayaa sidaad la socoteen dagaalkan Israa'iil ay ama Yemen ku qaadayso ama Iiraan ay ku qaadayso ama Qatar lagu weeraraba go'aankeeda dadka wax ka gaara waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda difaaca nidaamkaasi oo lagu magacaabo Israel Katz haddaba ninkii isaga ahaa maanta wiil yar oo Turki ah oo teleefanada yaqaana sida loo adeegsaday teknolojiyada ayaa u dhacay teleefankiisa waliba way adkayd teleefankaasi in la helo odaga waxaa la arkay isagoo mar kaliya muuqaal lagu wacayo si halhaleel leh ayuu teleefankii u haabtay markii uu dhegta saartay malaha waa muuqaal waa is hordhigay inan baa ka soo baxay canaan iyo ceebayn iyo carow kala dul dhacay
intaa markay dhacday ninkan isagoo jawaabinba taleefankii uu jaray kadibna waxaa bilaabmay in ay bilaabaanba in ay si weyn ay arrintan uga jawaabaan wadamadaas oo ay bilaabatay inuu cadaadis weyn dareemo inay si weyn xaaladda uga adkaato kadibna taleefankii markii uu jaray kadib waxa uu banaanka keenay yarkii inta uu qaatay sawiro oo baraha bulshada ku baahiyay taas oo hadda si weyn loogu dhaleecaynayo qodhiisa waa ka hadlay Katz waxa uu leeyahay war aniga maxaa la igu haystaa ma inaan dadkayga difaaco oo kaliya wuxuu leeyahay maalin kasta fariimaha ay soo dhaca wala walwala kaliya laakiin taa iga ma joojinayso dagaalkan inaan sii wado oo xaaladdu aan sii adkayo marka dooda halkaas uu keenaya sidoo kale taleefankiisa ayuu baahiyay oo banaanka uu keenay dad fara badan caawa waa haystaan arrimaha carabta iyo waliba jiijiitanka bariga dhexe qaybtan intaasaan ku dhaafayaa waxaan galayaa dhinaca wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wadanka Turkiga waxa uu ku yeelanayaa saameyn dhameystiran oo togan oo dhinac walba taabanaysa waxa uu dhawaan daboolka ka qaaday saameynta diyaaradda la yiraahdo Herjat oo ah mid ay soo saareen shirkadda la yiraahdo Turkish Aerospace Industry oo tusas loo soo gaabiyo dhinaca Turkiga marka la joogo taasi waxa ay ka gudubtay baa la leeyahay marxaladii ugu dambeysay diyaaraddan waxana ay ku saabsan tahay helitaanka shahaadooyinka caalamiga ah ee aqoonsiga duulimaadka dunida waa la ogolaanaya marka Turkiga inuu diyaaraddan isaga hirgeliya ayay noqonaysaa oo aad loo soo dhaweyn doono gudoomiyaha hay'adda warshada difaaca Turkiga ee la yiraahdo Haluk Görkün ayaa sheegay in diyaaraddan ay guul aad iyo aad u weyn ay gaartay lana dhameeyay tijaabooyinka istiraatiijiga ahaa taas oo u gogol xaaraysa in la helo shahaadooyinka muhiimka ah ilaa iyo dhowr shirkadood oo kala duwan ayaa arrintan xaqiijiyay oo oranaya diyaaraddan waa caadi waa la aqbali karaa waxaa ka mid ah DOA iyo BOA shirkadaha la yiraahdo dhamaantood waxay leeyihiin waa la aqbali karaa marka ninkan shirkadan maamula ee la yiraahdo Haluk Görkün waxa uu ku tilmaamay guushan mid aan kaliya farsamo ahayn balse sidoo kale ay tahay tallaabo taariikhi ah oo ku wajahan hanaanka madax banaanida hubka iyo ciidamada cirka ee wadankaasi ay leeyihiin taas oo diyaaradda Herjat ka dhigi doonto buu yiri astaan u ah hal abuurka iyo injineernimada qarannimada wadanka Turkiga oo wax soo saarka wadanka uu aad u sii kacayo waxa uu xusay in dadaalada injineerada gudaha ay ka wadaan wada shaqaynta hay'adaha kala duwan ay horseedayaan guud ahaan isagoo ballan qaaday in Turkiga uu sii wadi doono horumarinta awoodiisa madax banaanida ee awoodda sare ee difaaca shirkadan waxa bixisa baa la yiri ama shahaadooyinka ay qaadanayso Turkida oo shirkadooda ama diyaaradooda lagu ansixinayo waxa bixinaya hay'adda badqabka duulista Yurub ee loo soo gaabiyo EASA waxana ay muhiim u yihiin diyaaradaha Herjat in loo iibgeeyo guud ahaan caalamka oo durbaba waxa bilaamay dawlado kala duwan in ay codsiyo soo dirsadaan oo ay aqbalaan diyaaraddaasi in la hirgeliyo iyadoo hadda ay u muuqanayso guud ahaanba caalamku inay aad u soo dhaweynayaan akhyaartana la socota wali tubinta waa noo sii socotaa wararka bariga dhexe waa kulul yihiin caawa shirkii qaramada midoobay ayaa hadda socda warbaa la filayaa inuu ka soo baxo arrimihii qadar barnaamij dambe ayaan idinku faaqidi doonaa si toosa halkan ula socda aad baad u mahadsantihiin Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogta Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka